waxaan salaamayaa madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka waxaan salaamayaa madaxweynihii hore Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole madaxweyne ku-xigeenkiisa golihiisa wasiirada waxaan salaamayaa safaaradda Itoobiya Ismalaash waxaan salaamayaa golaha isimada gabdhaha aqoon-yahanka bulshaweynta bahda saxaafadda nabadoonnada culimaa u diinka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa layidhi ninku hadduu kaa afmaalsan yahay hadduu kaa horreeyana waa ku xaalufiyaa hadduu kaa dambeeyana waa ku xujeeyaa warkii jaamac dhagadheeraha qaatay aan waran lahayn wixii kaloo lagu hadlaa waa gowgow anaa hadlay looma hadlay haddii hadal haray baa la hadlaa baa leh keliya aniga taargetkaygu waxa weeye inaan u mahadcelinno eeraboorkaas ciddii gacan ka geysatay oo dowladdii hore oo Puntland iyo dowladda dambe oo hadda gacanta ku haysa ay hormuud ka yihiin iyo dowladda Turkiga oo shaqada qabanaysa dowladda Kuwait oo dowlad islaam oo deeq badana Soomaalidana jecel anigu waa ku noolaan jiray Kuwait in badan baan deganaa ilaahay baa mahad leh waa u mahadcelinaynaa waxaan kale oo rabaa inaan tilmaamo airportka waxaa la sheegaa diyaaradaha cargoga oo waaweyn oo Airbus iyo waxa ay ka kacaan oo shardu ah 3 kilomitir mashruuca layna siiyey ma dhammaan la leeyahay maamulada Soomaaliya oo aynu jaarka nahay qaybtood wax alla wixii dawladdu u baahato ganacsatada qabata wax alla waxay u baahato wax weyn baynu iska ognahay warina kuma seegana ganacsatadu marka dawladdu markay la shaqayso dawladuna gacan furan bay ku soo dhawaysaa meesha ka macaashaysay u sahlaan ilaa waxoodii waa wax jeebka ku jira waa isku halayn kalsooni baa la isula shaqeeyaa waliba khusuusan nugaal waxa jidha sheeka xariira la yiraahdo mudug waxa jooga jilka ragga dhiigiisa ku nool mudug 9 goor haday nabad tahay waxa lagu oranayaa xalay laba la dilay maanta nin baa dhintay qole hebla xanaaqday oo 3 way kaga tuubay kuwa soo dhuuntay waxay dileen geeli barqamaan yaani waa wax hore ma aha wax dheer nugaal waxa jooga baa jilka lacagta una jeebku gashanayaa wax kama baxaan maadadu waa furayaal adduunka inaad wax ku qabsato ceebta inaad iskaga ilaaliso inaad adigu cunto afku boor soo marsanaya si kasta haddii la yeelo 2 shil ma soo bixin karo bari waxa joogaa la yidhi jinka geela cuna anigu markaan garaadsaday waxa la oran jiray 500 qaalmood baa ina dhaaftay 4 baa maanta gudubtay haddaad dhaafto yaka halima joogto war waxaad yeeshaan haleydinka cuudiyo nugaaley jinka lacagta cuna waa in leydinka cuudiyaa oo fuquraana leydin doono amar baa qabtaan xun wallaahi baan ku dhaartay waa la wada ogyahay shirkadaha wax soo dejiya iyo kuwa halka jooga maanta Puntland nugaal waa la iska warqabaa meel ka jeeb roon oo ka shirkada roon oo ka lacag roon ma jirto 600 mitir kuma ma awoodaan inay sameeyaan abarwi war haleydin cuudin nimay quraan haleydin akhri oo anaga idin bilaabayna lacagta waxaad yeeshaan lacagta bixiya bal hada dhageysta anigu $2,000 baan bixinaya ana bilaabay hadalku waa bad iyo boqon baa leeyahay waxba yaan lagu warwareegin meelaan waxba jirin anigu ma aqaan warwareega taargetka waa in la beegaa waxa runta waa in loo dhaqaaqaa gudi waa in la sameeyaa
ganacsatada ragga isku sheegaya oo anigu aan arkay ma aqaan inay hadeer ka rayn doonaan oo oran doonaan waa isbedelay geel waa galgashaa ragguna waa isbedelaa baa la yidhi waxaan waa u ducaynaynaa barkorta annagu waa u ducaynaynaa ilaahay lacagta ha idin tuso inaa wax ku qabtastaana allah idin tuso ma garateen cid kale oo aan anigu hadda saaka taarget garaynayaa ma jiro waxa weeye been idiin sheegi mayo waxaan ogahay maamulada hareeraha ina ka waxaan ogahay hiil iyo hooba dawladda qaybo la dhinac taagan wax kastoo ay qabanayaan meeshan waa meediyo wax walba ka sheegi mayo wax badan baa ka oga dawladdu waxa weeye waxeedu waa mushahar ma dhaafi karaan waxa weeye markaad wax bixiso baa wax kugu soo noqdaan aeroboortka halkaasay aragoostadu taagan tahay 2 toddobaad marka dambeeta ama waxa loo dhaqaajiyaa gaalkacyo midkeeda gabanka ah ama kii isaguna gabanka ahaayo ilaahina ka bedelay oo boosaasood iyadoo laga yaabo inay meeshii ku balowday oo ay sidii la rabay ba ahayn 600 nugaali waa inay samaysaa waa in lagu daraayo uusan ka harin inuusan ka harin wey guddi waa in la sameeyaa lacagta waa in aniga layga qabtaa maanta galabta waa in layga qabtaa war badan taximbayo waa u mahadcelinayaa dawladda hadda joogta iyo cabdiweli oo hawshaas isu xilqaamay dawladdii hore waa u mahadcelinayaa oo raadkeedii uu yahay waxa la raacayo oo iyaguna caynkaa sameeyey dawladda kuweyt oo noogu deeqday waryaara inta ducfi iska dhigayno inta jaadka lagu cunaa ka badan lacagta inaga layna ku kaabayo bal xisaabiya maalintii waxa jaadka lagu cuno Puntland bishii ku dhufta sanadka ku dhufta adduunka wax bini aadan oo inuu ku caawin kara ma jiraan waa milyaar markaasaynu dad tuugsanayna ajnabiga inaga dhaqaalaha haysana awoodeena allah inuu tus ilaahay dambigeena iyo kiwaardkeen baa dhaaf ila dhamaanteed allah inaga xijaab khayr dhamaantiisna allah inoo fur dawladeena ilaahay rabbiga qaadirka ay kor ha u qaado markastaba Puntland tajirta oo kor u socota oo la kuuyo oo la dhaliilin allah ka dhig ilaahay aakhiriya adduun bahana liibaan inaga gabdhaha inoo ku daacadsan rag bar aakhir maalay salaamu calaykum